السلام عليكم خياري مدن يالي مرويين ومدى الصوماليات من الباق جوكتان مقعي ويان حسين عبدي waxaan rabaa maanta inaan halkan idinla wadaago oo aan idinla qaybsado xanuunka geerida walaalkeen wasiirkeenii dekedaha nuur faarax xirsi oo ku geeriyooday magaalada muqdisho labadii maalmood ugu dambeysay aad iyo aad ayaan u dareemay dadka Soomaalidu sida ay u hadal hayeen geesigaasi naga geeriyooday Allah u naxariistay nuur faarax xirsi hawiyada ama identity-ga ummadda Soomaaliyeed oo isbedel weyn ku dhacay waxaan ka fikiraa ama aad isweydiisaa 1940kii iyo 50kii qofka Soomaaliga ah ee reer baadiye ah ee geer raacatada ah hadii la yiraahdo Soomaalinimada halkii uu ka taagnaa iyo maanta dadkii wax bartay kuwii ilbaxay kuwii adduun maray Soomaalinimada meeshii ka taagan yihiin ayaa u baahan in dood fiican laga galo waxaan qabaa in geelshirihii 40kii noolaa iyo 50kii noolaa aan iskuul gelin Soomaalinimada inay u ahayd wuxuu ku faano ma taqaanaa khatarta ugu badan ama threatka ugu weyn ee qarannimo Soomaaliyeed oo qiimo leh hor taagan ma taqaanaa ma yabaan ku wuxuu horta ugu siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhan waan arko arintaas waa ka daahanta uma bilowna khatarta ugu weyn ee dawladnimo ummadda Soomaaliyeed ay hesho oo qiimo leh dawladnimo yani qiimo leh dargi waafiga ayo kala waa qaybintii ay u qaybiyeen xuduudaha Yurub qarniga 19 yaqas way ummad isku mid ah oo dhul isku mid ah leh ayaa la qaybiyay saas weey arinta madaxayga baxay laakiin markii dambe waxay ugu soo degtay dhulku qiimaha uu leeyahay inuu weyn yahay inuu yar yahay Soomaaliya markay shanta dalka Soomaaliya ay degan ahayd waxay ku soo dhacaysaa qiyaasta ah aan ku sheegay milyan iyo 200 kilomitir square qayd dhulka gaara maalin buu super power gaari doona malaa markaaba istiraatiijiyad hore ayaa jirtay oo la doonayay in dhulkaas uu noocaas oo kale u dhici doono in sidaa laga yareeyo hadda tii kale intii hadhay ayaa gudaha loo soo galay markaas la doonayay reer walba in dawlad iyo calan iyo baarlamaan gaar loo sameeyo been miya taasi reer hebel waxaanu idin sameynaynaa dawlad iyo calan iyo baarlamaan iyo ayaanu idin sameeynaa halka ay maraysaa iminka halkaasi maraysaa sida aad la socotaa nuur waxa uu safiir ka soo noqday wadanka Malaysia oo u fadhiyay ummadda Soomaaliyeed halkaasi oo dhalinyarada wax ku baratay ardayda ay aad iyo aad uga abaal sheegteen kuna tilmaameen inuu ahaa nin aysan taariikh ahaan soo arkin ninkaas oo kale nuur waxa uu ahaa dhaqan ahaan dadka sheegay nin aqoon badan nin cibaado badan nin sabar badan nin garasho ahaan iyo xigmad ahaanba ka sareeya maanta dadka Soomaalida horboodaya nin lagu tilmaami karo inuu ahaa nin qowmi ah oo aan haba yaraatee sal ku lahayn qabiil iyo koox iyo qolo gaar ah runtii reer waqooyiga halkan dad badan ma isku arag ama Soomaaliland ama meesha aan ka soo jeedo runtii waxa ay qabaan in waalana waxaan arag caruurtayda 4 sano caruurtayda 2 goor oo ay Muqdisho ugu yimaadeen markay walina gurigoodii Hargeysa deegaan ka maray sabab aan uga rargarmay ana gurigooda dhulkooda sabab aan uga rargarmay ya waxaan garanaynaa sabab la igu diidan caruurtayda u tago sabab loo leeyahay gurigaaga ma gelisid wallahi ma garanayo waa yani bini aadanimada meeshii aqliga ugu dambeysay Soomaalidu waxaad moodayeen yani ma gurigaaga inaan tago ayaad intiisa oo ma caruurtayda loo nadiisa yani waxaan qabaa waxa laga yaabaa ayaan mid ay ugu berito qaar hore way soo noqdeen adoo soo noqdaan la arki doona waxaan isleeyahay waxa aan doonayaa waxaan ka hadlayaa wax cad haddaan anigu kari waayo macnaheedu maaha waxaas inay midmadu aan xalaal lahayn Soomaalinimo in la helo mida oo dawladda oo aan dalkii dadkeeda kala lahayn waa arin xalaal ah oo aan meel laba mugdi ka soo inaan ka hadlo mid baan iga dhici doonin ilaahayna aan ka yaabay inaan ugu imtixaamin ugu keenin inaan iraahdo taa cagsigeeda dadka Soomaalida hal la qaybi nin ummadda oo dhan u siman tahay nin ummadda oo dhan ka fikirayo ahaa Allah u naxariisto runtii geeridiisa aniga shakhsiyan iyo dad badan oo ila mid aad iyo aad bay noo taabatay iyadoo aan ognahay marxaladda maanta lagu jiro marka la eego 30 sano ee ugu dambeysay in haldoorka Soomaalida geeridiisa aan dadku aad u dareemin laakiin marka uu dhinto nin qaa'inul wadana nin maaragtay qabyaalad badan nin qalbigiisu yar yahay oo ciriiri yahay oo ummadan iyo dalkan iyo dadkan kala qaybiyay nin markaad fiiriso aqoon ahaan iyo garasho ahaan
qalbigiisa uusan qaadi karin wax ka badan reerkiisa marka uu dhintana aad iyo aad loo weyneeyo iyadoo dadka haldoorka ee ummadda ka baxay ee qalbiga weyn leh ee qalbiga mataqaanaa ahlu jannaha leh ee naxariista badan dadkaasina aan haba yaraatee lasoo hadal qaadin adiga Somaliland caawa lagu qabsado oo leedin kuma jirtaan intiina kale oo la yiraahdo adiga meesha la yiraahdo maxay ahaydeen Jubaland adigu balaayo soo gaari mayso adiga dad kuguma socdo oo markaa miskiinkan kursiga fadhiya garbaar ruux ayaa yiraahdo inaga kuma jiro waa la sheegay waa tirayo waa murugo waa qiimo la'aan wax la yaab leh dadka Soomaalidu markay maamuli kari waayeen qarankoodii qiimaha lahaa ayay doorteen inay waxan noocana inay door moodaan ayay noqotay yani dad maskaxdooda xaqii dambe u socto weeyaan anigu waxaan aaminsanahay marka maanta xaaladda Soomaalidu ku jirta la eego Nuur Faarax Xirsi wuxuu ka mid ahaa dadka haldoorka ah dadka naadirka ah oo ay yar tahay waqtigan in Soomaalida laga helo wuxuu ahaa nin hogaamiye ah wuxuu ahaa nin afkaartiisa aan qarsanin isagoo xitaa dawladda ku jira isagoo dawladda xukuumadda ka mid ah nin aan afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo sida ummadda loo badbaadin kara aan qarsanin nin aan hankiisa ku ekayn inuu ilaashado kursigiisa nin aan hankiisa ku ekayn inuu xildoon yahay ayuu ahaa Nuur Soomaalida hal dhibaato haysata oo aan mid labaad ayaa aabo oo ama hooyo oo dhibaatadaas waxa weeyaan dawladnimada qofka ummaddu maanta ummad bila dawlad noolan karaysa adduunyada ma jirto qof bini aadan oo soo foofaya oo aan dawlad lahayn adduunyada maanta kama noolaanayo inaguna kuma noolan karayno inaguna waxaan u baahanahay dawladnimo dadka qaar bay la tahay maanta inay taas suura galeen war shalay suura gashay iyadoo tan laga aqoon liito oo laga dhaqaale liito oo laga ilbaxnimo liito ayay dadkii reer baadiyaha Soomaalidu ay hirgeliyeen Soomaalinimo iyo dawladnimo iyo midnimo intaba hirgeliyeen waxaan ka hadlayaa khiyaali ma oo wax shalay dhacay maanta oo dhici kara anigu waxaan oran lahaa taah lagu dadaalo si aynu dawlad Soomaaliyeed u helo horta aan ka fikiro in ummad Soomaaliyeed la helo la raadiyo ummad Soomaaliyeed in la helo oo loo hawl galo oo qofka iyo aqoonta iyo garashadu ay taa keento oo bal aynu ku noqono sidaynu 40 iyo 60 ahayn aan ku dadaalo maalinta taas ay dhacdo oo lagu dadaalo oo la helo dawladnimo Soomaaliyeed waa khasab oo qiimayn timaado oo qurux badan Nuur Faarax Xirsi Ilaahay ha u raxmado dad badan oo inaga mid ah dad badan oo meel kala duwan jooga ayaa aad uga hadlay runtiina ka xanuunsaday geerida Nuur Ilaahay waxaan uga baryaynaa sida uu qalbigiisu waasica u ahaa sida uu u naxariis badnaa Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistiisa siiyo Nuur Faarax Xirsi ubadkii eheladii iyo qaraabadii uu ka tagayna samir iyo iimaan uu ka siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة كي هجرد عن شيء وضيضا حمانته الأبن لغن كيو هدا هاري ديدي دل كان هو غي الهالإيي حشدو لداو يكاتي قولي هبل للكيغو قيبسن صوما لذاك لهاتسن هردامي دحدودو يسايستا هيب تليسو عولاتشو حقيال نعبودي أفوفا ورقومدا سياسي هورس إذا هيساها قبيل كودارن وهذا اللي يسكوه دايو dadkan reer ahaanta hagaysi halka heerka diinta u joogto hooda iyo hiilkana geeyay uritaan nafeedna u gaadhay